bal aan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo falastiin waa maqashaan iyo urur xamaas la yidhaahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bam yaalay lagu garaacayo weli istifaacaya ururkaa ninka sameeyey ee hogaaminayay hagayay korsuu dul saaraa meel dhaqaaqdo jidhkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka qur'aan ee uu akhrinayo inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yidhaahdaan inanku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaa buu garan waayo kitaabkii uu akhrinaya waraaqdiisa carabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda carab buu leeyahay maca daalik xoogga yuhuudeed buu hortaagan yahay dhakhtarkiisaa yidhi aad baad u tamar darrayse waxaad u baahan tahay na siino dabeetana wuxuu yidhi may ee masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay haydee waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka israa'il kaa kursiga lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantannimada cirka mara inta loo soo dira gantaal lagu dhuftay yacni ninkaasi hammuu siday jidhna intaasu ka yihi itaalkiisu waa carabkaa dhaqdhaqaaqaya caqligana wuu qabaa laakiin isma odhan muqcad baa tahay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehee wuxuu u taagan yahay inuu diintiisa iyo ummaddiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hoggaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlado dhan oo dunida waaweynba u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waaye hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caankaa leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sarreeya Cambridge University kursigu Newton fadhiyi jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara waana theoretical physics-ka dunida ugu qiimaha badan le maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay qadaayaadkan lagu tilmaamo meelahan madowee cirkee la sheego the black holes aragtiyadiisa iyo waxa ku saabsan waa aqoon-yahanka dunida hogaaminaya hadalka mishiin baa ka soo saara meel dhaqaaqaysaa ma jiro muu is odhanin war muqcad baa tahay aan meelina u noolayne hankiisi wuxuu gaadhsiiyey aqoon-yahanka dunida hogaaminaya cilmiga fiisigiska inuu halkaasi noqdo isagoo kursigaa lagu jiidayo oo carabka aan ka hadlayne bahashatan ay ka hadlinayso idan qofku hadduu han leeyahay walow jidhku uu xidhxidhan yahay oo aanu jirin hanku meel sare u gaadhsiiyaa